hore ilaahay waa mahadle mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo runtii aqbalay cabashadii ama waxyaabihii ay ka cabanayeen madaxtooyada macaaridka in laysaga yimaado oo guriga qasriga madaxtooyada gogley oo caawa ah markii labaad waxaa kaloo u mahadnaqayaa madaxda xisbiyada qaranka oo runtii iyaguna si wanaagsan u aqbalay in la wada hadlo oo laysu yimaado oo arrimaha dhexda laga tirsanayo arrimaha laga fadhiisto laisla eego caawa hadalka ugu bilowday muddaana howlihii qolo waliba wixii ay qabanaysay la sheegay iyo sida waxyaabaha duruufaha jira waxaana runtii laysla qaatay oo ka soo baxday in muxuu ahaayey ay u baahan tahay in lasii wado oo wixii shuruucana ee laysku hayeyna la eego oo laysla akriyo si wada jira arrintaasna muxuu ahaayey loo ballamay in lasii wado wada hadalka maalinta sabtida ee xagga soo gelaysa haddii la yidhaahdo oo qasriga madaxtooyada laysugu yimaado marka halkaasay caawa ku soo dhammaatay wada hadalkiina inuu socdo oo uu sii socdo oo laysla eego waxyaabaha laysku khilaafsan yahay hadday tahay doorashooyinka hadday tahay komishanka hadday tahay waxyaabihii kale shuruucdan laysla eego meesha lagu ogol yahay halkaasay soo dhammaatay sidaasaana caawa lagu kala tegey waxaana isugu soo noqonayaa maalinta sabtida ee xagga soo gelayso ayay haddaan hal su-aalo aan ku weydiiyo maalmihii ugu dambeeyey baa waxaa wado ka dhawotay xisbiyada qaranka somalilan iyo xukuumadda maanta oo caawa oo lagu jiro arrintaasi xisbiyada mucaaradka waxay sheegeen in lagu dhacay aduguna waxaa loo sheegtay in wada hadalladii ay sii socon doonaan arrintaas waa lagu kala kacay iyo waa la sii wadaya waa laba arrimoodoo kala gedisan caawa dad go-aama kama soo bixin kale oo arrimi laga wada hadlay dee go-aan lagama wada gaadhin laakiin in la sii wado oo shuruucdeeda iyo qolo walba waxa haysta iyo laysla yimaado oo ay sii socoto taasuu waxda lagu kala tegay maxaad nooga sheegi kartaa mudane cali maxamed warcade wixii laysku aftiran waayey ee ay tahay dhinacyadu isku khilaafsan yihiin ilaa iyo hadda ee laysku mari la'yahay runtii sida ay la socotaanba waxaa laysku hayay waxay ahayd ururada iyo madaxweynaha teebaa soo horeynaysa sharci baana dee noo yaalla baa waxaa loo ballamay in laysla eego shuruucda waxay qorayaan la eego komishanka oo iminka muxuu ahaayey duruufo dhex yimaadeen halkiisa wixii sharciga isla in loo eego sida loo marayo muxuu ahaayey doorashooyinka soo socda sidii muxuu ahaayey loo hirgelin lahaa iyo waxyaabada kale sidii looga wada hadli lahaa marka waa broses caawa bilaabmay hadalkiisii siina socdo laakiin dee go-aamo caawa lagu heshiyo soo baxay ma jiraan waxaana lagu ballamay in sabtida maalinta axadda soo gelayso inay isku soo cali maxamed warcade mucaaradku mar walba waxay leeyihiin November iyo December November baa rasmi 13 November madaxtooyada waa in la qabtaa idinka qoladii dawladda ay waxay leeyihiin ururada soo horeeya sida wararka qaar ay sheegayaan mucaaradku waxa ugu weyn ee ay ka walaacsan waxa weeyaan in doorashadii madaxtooyada ay samaysataan 2 sano doorashada ururada qabataan oo iyaga muddo ku ururadii labadaas ayaa khilaaf u yahay sida mucaaradka qaarkood sheegaya marka dawlad ahaan idinku sidii waxaad doonaysaan in 2 sano madaxweynaha loo kordhiyo ururadana aad qabataan se haddii ay dhacdo inaad qaban weydaan doorashada ururada soo moogida shacbiga Somaliland ay mucaaradku u sheegeen inay gacan u difaaci doonaan dimuqraadiyadda Somaliland bismillaahi raxmaani raxiim horta waxa weeye waxa shuruuc bay leedahay wax qof iska oran karo wuxuu doonayo ama uu iska kordhisan karaa ma jiraan shuruucdaas wixii ay dhigtay weli maynaan gaadhin waqti yar baa inooga hadhay waxyaabihii caawa laga wahday waxay sidaynu waqtigaa inta inooga dhiman aynu road map samayn lahayn sidii aynu wixii carqalayna waxaan uga qaadi lahayn hadday lacag tahay iyo haddii wax kaleba la raadin lahaa dabeedna inay waqtigeedii wax walba ku qabsoomaan wixii aynu isla afgaran lahaana sharciga la eego wadaagtii aynu deganay isla eegno haraa laga fadhiyo inta caawa lasoo qaaday way mudane waad ogtahay xisbiyadii mucaaradka hadda meel bay taagan yihiin iyagu waxay taagan yihiin in doorashada November la qabto 13 doorashada madaxtooyada madaxweynaha iyo sidoo kale xisbiga kulmiye adiguna aad ka mid tahayna waxay taagan yihiin in ururadii hadda la furo haddii xaaladdu halkaa ku sii socoto oo labada dhinac ay ku adkaystaan sidaas
حلا مدحونها سوماليا مسبيح عبد مادام هو جامين يو ضل في قرن أو وضعي قرن كيا متناسل يا مادام ولا تريس يتهايدون. قلت واحد يتعاشر مكابورين ما واحد وحوية سيدنا عليه سنة ما وحبين قرن وحا عين قرني إلا يقول لسوي ما جمع وقبل هذه مركادة إدي مركاد كل ده إنبا خلق فهم سنة إدي خلق مثلا مدون هنقط أما هنقط المعارضة يخلق كم مش اللي صاروا شرعيا يقول قانون الإسلام يلا يا هذه جدال معارض مدحونها ما متناسلية. فرق جدال اللي من كل شيء معيه فرق جدال الله لا كيلو